Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka. Waxaan rabaa inaan ka cudur daarto daahitaankii aan la soo daahay muuqaalkan. Howlo badan ayaa igu furnaa. Waa saamix waaye inaan soo geliyo. Laakiin insha Allah maanta ma bilaabanayna halkan. Maanta qisooyinka yaryarka ayaan wadaa. Kan koowaad waxay tiri gabadhan waxaan kala kulmay dhibaatooyin xagga ninkayga ah. Arrimuhu waxay gaareen meel aan rajo lahayn. Si kastaba ha ahaatee waxaan ku qanacsanaa wixii Alle ii dooray. Waxaan bilaabay inaan akhriyo Quraanka, tukado salaada tahajjudka oo aan Eebbe cafis weydiisto oo istighfaar badan aan sameeyo. Maalin iyo habeenba waxaan sameyn jiray istighfaar 4000 oo jeer. Anigoo akhrinaya ducadii Nabi Yuunus calayhi salaam oo ahaa laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu minadh dhaalimiin. Xaaladii way ka sii dartay. Waxaan bilaabay inaan quusto. Sidaa darteed waxaan kordhiyay istighfaarka ilaa aan ka gaaro 10000 oo jeer maalintii. Subxaanallah, Ilaahay amarkiis wax walba ayaa isbedelay oo si fiican ayay iigu hagaageen bil gudahood. Inkastoo aan mararka qaarkood rajo beelo xaaladayda markaan fiiriyo, weligay kama quusan awoodda Allah iyo qadarkiisa. Allah subxaanahu wa tacaala wax walba isagaa xukumo. Qofkii labaad waxaan sameynayay istighfaar 5000 oo jeer maalintii muddo 8 bilood ah. Sidoo kale waxaan akhrinayay suuratul baqara 2 bilood ee ugu dambeysay. Ilaahay amarkiis wax aan macquul ahayn ayaa ii fududaatay. Waxaan jeclaa nin, laakiin guurkii ayaa nagu adkaaday maadaama aan ku kala nooleen wadamo kala duwan. Laakiin Ilaahay qadartiis istighfaar iyo ducooyin, ninkaygii wuxuu awooday inuu dalkayga yimaado oo iga soo doonto familkayga. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa wax walba gacanta ku haya. Qofna inuu ka quusto ma aha naxariistiisa. Istighfaar waxay tirtaa dambiyaalkeena dhan, kuwaasoo ka hor istaaga jawaabaha ducadeena. Qofka saddexaad wuxuu yiri waxaan rabaa inaan idinla wadaago experience-kaygii aan markaan aniga suuratul baqara akhriyay. Waxaa la igu sameeyay sixir aad u xun muddo 22 sano ah. Waxaan aaday sheekhiyo iyo raaqiyo badan, laakiin wax daawo ah ima helin. Dabcan mararka qaarkood xaaladdu way fiicnaan jirtay markii Quraanka lagu akhriyo, laakiin markasta oo akhriska ay joojiyaan xaaladda meesheedii ayay ku soo noqon jirtay. Waxaan kale oo qabay xanuun daran oo caloosha ah oo aanan awoodin inaan ka socdo ama shaqooyinka maalmeedka guriga aan ka qabsado. Sanadahan oo dhan ma awoodin inaan u adeegto carruurtayda iyo ninkayga. Cagajiid iyo rafaad badan ayaan ku sugnaa. Waxaan u dhex socday dhaqaatiir kala duwan, laakiin wax daawo ah la ima helin. Maalin maalmaha ka mid ah ninkaygii ayaa igu yiri maxaynu u baran weyno Quraanka annaga laftigeena, markaasna aan isku akhrino annaga oo kaliya si aan u aragno nolosheena si isku bedeli karto. Soo odaygeeda wuxuu kula taliyay bal horta annaga Quraanka ma annaga barano oo kadibna isku akhrino markasto nolosheena aan aragno si isku bedeli lahayd. Waxaan bilaabay inaan barto sida loo akhriyo Quraanka oo leh tajwiid iyo tartiil. Markaan xaaladeedii way sii adkaatay sababtoo ah xanuunkaygii ayaa ka sii daray, laakiin tartiib baan u roonaaday alxamdulillaah. Waxaan bilaabay inaan akhriyo suuratul baqara habeen walba muddo 6 sano ayaan waday. Waxaan dareemayay caafimaad aad iyo aad u wanaagsan. Markaan Quraan akhris aan bilaabay, uurkii afraad ayaan lahaa. Experience-kii oo dhalmada cunuga afraad aan dhalay aad ayay uga fududeed markii loo fiiriyo 3 carruur aan hore u dhalay. Ma ogeyn, laakiin inan aan saaxiib nahay ayaa ii sheegtay inay fiican tahay inaan akhrino Quraanka intaan uurka leenahay maadaama ay noo fududeynayso dhalmada habka markaan dhalayno ama laybarka. Waan cajabay markaan maqlay arrintaas. Waxaan rajaynayaa in ay tani dhiirigelin kuu noqoto inaad akhriso Quraanka insha Allah. Hadda xaadirka ah aad ayaan u fiicanahay. Sidii aan hore ahaa aadaan uga duwanahay. Alxamdulillaah xanuunkaygiina waa iga baaba'ay. Waxaan dareemayaa tabar iyo awood nafsi ahaan. Maba garanayo erayo aan ku sharaxo waxa aan dareemayo. Waxaan ku jiray mugdi iyo daciifnimo iyo tabar darri, laakiin Quraankii ayaa i siiyay xoog aan ku istaagi karo oo aan ku qabsan karo waajibaadkayga oo howsha qoyskii layga rabay. Hadda markasta oo aan dareemo niyad jab iyo moraalkayga inuu hoos u dhacay, waxaan akhriyaa suuratul baqara. Bilowgii waxay ila ahayd suuradan inay aad u dheerayd, laakiin hadda alxamdulillaah waxay ila tahay mid si fudud oo durdur ah aan u akhriyo. Subxaanallah, Ilaahay hana hanuuniyo kulligeen. Sheekada maasha Allah 22 sano qofkan rafaadaysay. Markaas iyada Quraanka intay baratay ayay isku akhrinaysaa mar walbaba.
quraanka daa marba carabka ku haysid oo habeen walba al-baqara akhrinaysid ilaahay alxamdulillah caafimaad u soo dhiibay xoog iyo awoodna wuu siiyay iyo tabar ay waxaad ku qabsato qof oo waxay ahayd awal aan dhaqaaqi karin oo socon karin oo aad u dhibaataysan marka insha Allah tan waxa waaye cibro qaadasho weyn leedahay dhibaatooyin badan baana wada haysta kulligeen waa ogahay marka insha Allah haddaan suuratul baqara aan tartiib u bilaabno maalinba aan akhrino half a page ama hal page haddaan akhrino insha Allah waa noo fududaanaysaa anagana dadku waxa waaye aan ka hadlayaa oo anaga camal ah dadka laakiin maasha Allah quraanka soo xafiday oo soo bartay ilaaha u ziyaadiyay okay qofkii afraad muxuu yiri waxaan rabay inaan guursado qof isna sidaas ayuu doonayay laakiin dhibaatooyin kordhaya baan soo dhaxmaray oo badan waxaan bilaabay inaan akhriyo suuratul baqara muddo 2 bilood ah anigoo niyada ku haya in ilaahay igu cafiyo dambiyadeyda qalbiga waxaan ka oran jiray ya Allah ka dhig ninkan mid ii qoran oo qadar ii ah ninkan wuxuu bilaabay inuu dareemo inay wax si ka yihiin I don't know sixira markas maskaxdayda soo gashay acuud billahi min shaytaan rajiim laakiin waxaan sii waday inaan Allah ka baryo oo in aniga maahayn qof kale uusan arag inuusan la sheekaysanin sidaasna way dhacday intuu igu soo laabtay ayuu igu yiri dunidan dan kama lihi mar dambe aniga waxaan rabaa adiga oo kaliya Allah baa marqaati iiga ah inaan ku doonayo adiga oo kaliya si xalaal ahna ku doonayo I don't know ani ma hubtan watan aniga ma garanayo ninkii say u qoran u qarnays ilaahay u bareys baa ninkii ilaahay u soo jeediyay ninkii dadka dhanuu ka go'ay miya ma fahmin say dinka diratay bal isoo sheega okay qofka shanaad markii aan bilaabay inaan xooga saaro oo aan fiiro gaar ah siiyo adkaarta subaxdii iyo galabtii iyo habeenkii waxaan bilaabay inaan dareemo anigoo dhinaca istighfaarta u leecayo oo nafteedana ay rabto wuxuu ka wada nafteedii ayaa qofkan jeclaatay inaan mar walba aan iska akhriyo ma fahmi karin dareenkaas laakiin waxay ii noqotay balwad aan joojin karin adkaartu ka wada iyo istighfaarta waxay u noqotay balwad oo maalin walba qof akhrinayo waa carabkiisa u bartay waan ku celcelin jiray rabbi ighfir lii saacado badan waqti kasta sababta kaliya sababtoo ah qalbigayga ayay ka dhigaysay qabow iyo deganaan iyo wanaag ayaan dareemayay markastoo aan sameeyo ilaahay amarkiisa isla waqtigaas waxaan sidoo kale bilaabay inaan si firfircooni ah u sameeyo dadaal duco kaliya kuma ekeen si aan u joojiyo noocyo kasta oo xan ah oo ummadda aan ka hadlayo haddii uu hadalkaas run yahay ama been yahay waxaan bilaabay inaan yareeyo oo iska ilaaliyo meelaha la isku imaado oo xanta ka bilaaban karto waxaan kaloo iska ilaaliyay dadka hadalka jecel oo aan isla xaman jirno dadka ugu dambeyntiina inaan akhriyo axaadiista ku saabsan xumaanta xanta dadka laga hadlayo cayda iyo hadalada aan macnaha lahayn so qofkan wuxuu dhahayaa aniga hadii xantiya iska joojiyo hadaladii xumaayaan iska joojiyo dad waxaa jira qaarkood oo muugtahay marka la hadasho xanta ee aad isku kinbaxayso sheekada adi xataa waa miisanaysaa sheekadaas xantii wixii marka dadkaas camal xoogo inaad iska yareysid haddaad og tahay inaadan joojin karin dadkaas si xoogo inaad iska goysid waa iska fiican tahay marka bini aadan anaga nahno mugta xantana balaayada waa bahal macaan qof walba maanta waraa lagu soo sheegay waa jeceshana warkiis maqasho wixii lagu soo sheegay maxaa soo kordhay marka dadka noocaas haddaa iska yareyso xiriirkooda maybe waa badbaadaysaa qofka marka wuxuu yiri marka waxaas joojiyeyna waxaas sheekaas waan joojiyey dan ilaahayna wuxuu ii fudeeyay mar walba carabkaygiiba inaan ku qoyo istighfaarta qofka lixaad ilaahay amarkiis mucjiso ayaa igu dhacday waxaa jira dhibaatooyin weyn oo dhaxmarta aniga iyo ninkayga aniga qaladka lahaa uu ka carooday oo wuxuu igu yiri xalka kaliya oo inoo taalo waa inaan isfurnaa maxaa yeelay jaceylkii uu ii qabay uu dhamaaday waxaan bilaabay inaan sameeyo istighfaar inaan salaam u diro nabiga sallallahu alayhi wasallam saliga nabiga iyo inaan akhriyo suuratul baqara waxaan bilaabay inaan ku baryo Allah qalbiga furnaan anigoo leh oo Allah wax walba oo dhinta adaa soo noolaysiin kara waad awoodaa inaad soo noolaysiiso qalbiga ninkayga si uu ii jeclaado subxaanallah isla maalintaas ninkaygii wuu ii soo laabtay wuxuu yiri wuu i cafiyey wuu i jecel yahay waxaana inoo qoran inaan adi isku waarno biidnillah destinigeena waxaaba inoo qoranba inaan labadan isku waarno marka qofka aneeto adkaarta isticmaashay sixirka inta la aadi lahaa iyo dadka meelaha wax dadka usoo sameyn lahaayeen soo uma roon ilaahay inay baryaan ilaahay inuu qofka qulubtiisa u soo dejiyo taasaa xalaal u ahoo una fiican hadda saan gabdhahan ka dareemayo waa u jeedaan
sixir waxaad yaab u baahanba ilaahay naga qabtay shartaas iyo bilaayadaas. Okay, qofka toddobaad hooyaday sanad kor ayaa laga helay kansarka madaxa, subxaanallah, wuxuuna gaaray stage ama level aad u faafay. Akhbaartaas ayaa igu riday murugo weyn, noloshoo dhan waxay ila muuqatay wax ciriiri ah. Anigoo ku talagelin ayaan meel ka akhriyay fadliga suuradda albaqara iyo istikfaarta iyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. Waxaan bilaabay suurat albaqara, markaasuu qalbigaygii fududaaday oo furfurmay. Inkastoo hooyadii xanuunsanayd, waan is eedayn jiray sababtoo ah sidaan u dareemaya fudayd iyo qalbi furnaan xitaa iyadoo hooyadii xanuunsan. Laakiin waxaan jaahil ka qabay oo fahansanayn barakada ee suurat albaqara leedahay. Mahad ayaa Allah iska leh. Kadib markii aan akhriyay suurat albaqara, sadaqo aan dhiibay koob biyo ah oo aan ku waraabinayo shimbiro iyo waxaas, iyo istikfaar aan sameeyey iyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam aan badiyey, hooyadii way ka bogsaatay xanuunkii. Alxamdulilah, xitaa dhaqaatiirtii way fajaceen sida dhaqsaha badan ee u bogsootay. Sheekadan waa idin soo gaabinayaa buu qofkan dhahayaa si aan ugu dheeran, laakiin talo ayaan idin siinayaa. Suurat albaqara waa mucjiso, weligiin ha dhaafina, hana joojina. Qofka sideedaad, waxaan qabay cudur oo aan garanayn oo aad naadir u ah muddo 25 sano, kaas oo sabab u ahaa in jirkeyga uusan soo saarin hormoon oo qaas ah. Hormoons ayaa ka maqnaa jirkaas oo soo saaraya. Waxaan aaday dhaqaatiirtii, wayna la yaabeen sababtoo ah levelka hormoonkaas iga maqnaa oo jirkeyga ku jiray wuxuu ahaa 0, eber ayuu ahaa. Waan rajo gabay aniga dhan. Waxaana sanad dhan maalin walbaba akhrinaya suurat albaqara oo aan samayn jiray istikfaar 3,000 oo jeer, iyo nabiga sallallahu calayhi wasallamna aan akhrin jiray saliga nabiga 1,000 jeer maalin walba. Mar walbana waan weyse qabay, sadaqana waan bixin jiray, salaata tahajjudna waan tukan jiray. Waxaan doonayay inaan dhinto si aan uga nasto xanuunkan aan ku jiray, laakiin weli dadaal fara badan ayaan sameeyey carruurteyda darteed. Waxaan sameynayay intaan kor ku sheegay oo dhan muddo 1 sano. Alxamdulilah, alla qadartiis hadda waxaan helay 100% caafimaad. Madax xanuun iyo xanuun jirka ayaa maalin walba la tabcaan ahaa. Subxaanallah, qofkan alla wuu ku caafiyey. Hadda ka hor waxaan maqlay qof hadduu leeyahay dan ama dhib uu ku jiro uusan salaatul leyl tukanaynin, qofkaaseyto ma u baahna xalis si ugu dhaqsaha badan ma u baahna. Basically desperate matid aad ugu baahnaan lahayd waxaa u soo kici lahayd qiyaamo leyl habeenkii tahajjud. Qofkan wuxuu yiri wax walbaba hubkii oo dhan ayuu soo geliyay meesha. Hubkii oo dhan ayuu meesha isku keenay. Suurat albaqara, istikfaar, saliga nabiga, tahajjud, wixii oo dhan hal mar qofkan sameynayay. Ilaahay cudur wuxuu ka qaaday 25 sano hayay ayuu ka qaaday. Hormoon oo 0 la dhahay ayuu caafimaad ka helay. Marka sheeko cajaa'ib leh waa taas. Qofka sagaalaad, waxaan la dhibanaa wax dhalin la'aan muddo 23 sano. Micnaheedu 23 sano waan dhalin waxba. Kadib 23 sano rabbigayga ayaa i siiyay nimco oo inaan uur qaado anigoo waxyaalo kale xataa isku dayin. Waxaasoo dhan waa Allah subxaanahu wa tacaala awoodiisa. Waxaan bilaabay inaan akhriyo suurat albaqara iyo istikfaar. Muddo 2 bilood gudahood ayaan uur ku yeeshay. Kaliya taas ma aha, Allah ayaa naga qaaday dhibaatadii dhaqaale darrada. Ninkayga shaqo ayuu helay. Dhammaantood isbuuc gudaheed ay waxaas dhan ku dhaceen. Maasha Allah, alla qadartiis waa cajaa'ib. Ka waran qofkaas 23 sano ayay ka sugaysay inay Ilaahay awlaad siiyo. And then suurat albaqara iyo istikfaar ayay bilaabay. 2 bilood gudahoodna uur ayay ku qaaday. Nimcadaas ka waran. suurat albaqara waxa waaye wallahi suurad cajaa'ib ah. Qofkii oo awlaad la'aan hayso, you know what to do. waa taqaan waxa sameynaysid. Qofka tobnaad, sheekooyinkan 15 waaye. Soo qofka tobnaad, waxaan jeclahay inaan kuu sheego wax dhiirigelin u ah dadka ku daawanaya. Qofka saas u dhahayaa, saaxiibtay waxay doonaysay inay guursato wiil dhalinyaro ah, laakiin aabeed ayaa u diiday. Arrimahooda waxay noqdeen wax adag oo aan la xallin karin. Marka waxay bilowday inay istikfaar ayay bilowday. Suuradda albaqarana akhris ayay bilowday ka hor salaada fajarka. salaada fajarka ka hor ayay soo kacaysay qofkan. suurat albaqara ay akhrineysay, saliga nabigana way akhrineysay sallallahu calayhi wasallam. Waxay tukan jirtay salaada tahajjudka iyadoo kalsooni ku qabtay in Ilaahay ducadeeda aqbali doono. Taas important way. Inaad kalsooni weyn ku qabtid in ducadaada la aqbalayo si kastaba. Si kadisa ayaa aabaheed wuxuu ugu ogolaaday wiilkii.
wayna isguursadeen. Ilaahay ha u barakeeyo oo ha u ziyaadiyo. Saaxiibtaas laftigeeda ayaa waxay la kulantay dhibaato indhaha xaggiisa. Waxayna dhakhaatiirtu u qoreen qaliin isheeda in la bedelayo, the cornea in la bedelayo ayaa loo qorsheeyay. Ka hor qaliinkaas waxay u baahneed inay tagto cisbitaalka 4 jeer wiigii si loo diyaariyo isha qaliinkeedii bil kadib. Way sii wadatay istighfaarteedii. Markii ay ku noqotay dhakhaatiirtii si loogu sameeyo baaritaankii ugu dambeeyay intaysan qaliinka gelin, dhakhaatiirtii way amakaageen. Waxay yiraahdeen tani waa mucjiso. Waxay dib u sameeyeen dhammaan baaritaanadii oo dhan ayay kow ka soo bilaabeen. Waxay isbarbar dhigeen sawiradii hore ay kow ka qaadeen isheeda markay u baahneyd qaliin iyo tan hadda xaaladeeda see tahay. Markaas bay isbarbar dhigeen. Laakiin natiijooyinkii hore sax ayay ahaayeen. Laakiin waxaad u malaysaa hadda isheeda inaysan u baahnayn wax qaliin ah. Waxaan u malaysaa in la daaweeyay 100%. Sawiradii iyo natiijooyinkii dhakhtarka ayaaba hortoodii taala. Dhakhaatiirtiina way yaabeen oo waxay yiraahdeen tan see ku dhici kartaa. Xitaa qaliinka ay geli lahayd isha si buuxda uma daaweyn lahayn oo si fiican isha uma fiicnayn lahayn. Laakiin markaas waxay isweydiin gabadhan 100% indhaheedii sidee caafimaad ku qabaan. Xataa qaliinka aan sameeynayn caafimaadka hadda haysato isha ma hesheen. Sidee marka taas ku dhacday? Mahad Allah ayaa iskale oo naga dhigay kuwii fadliga ku hela saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aan u direyno iyo istighfaarta. Waxay gabadhan ii sheegtay inaan jirin wax impossible ah. Ducada Allah badi oo aamin oo yaqiinso in jawaabtaada iman doonto. Sheekadan sheeka mucjiso leh waay. Anyway, aan sii wadno sheekada 11aad. Waxaan ahay qof diinta Islaamka soo galay 8 sano ka hor. Waxaan ku soo laabtay Qaahiro oo wadanka ninkeyga ahaa. Waxaan aad u xiiseynayay qoyskeyga Qaahiro deganaa. Markaasaan bilaabay inaan istighfaar bilaabo ama sameeyo. Bishii Maajo ayaan uur qaaday kadib 8 sano. Ani waxaan ka dareemaa qoftan xogaa very clear ma aha si wax u qotay. Laakiin I think 8 sano ka hor ayay muslim intay noqotay ay nin muslim isu guursadeen. Markaas 8 sano raadinaysay carruur inay dhasho. Ilaahay haddana carruur ayuu siiyay. Iyadoo istighfaar markay samaysay. Alxamdulillah. Qofkii 12aad. Waxaan oran karaa istighfaartu waa mucjiso dhab ah. Qoyskeyga waxay iga soo horjeesteen inaan guursado qof ka soo jeeda wadan kale iyo dhaqan kale. Haddase waan isguursanaynaa. Haddii aad tan akhrinaysid fariintan sii wad oo ha joojin weligaa. Istighfaarta way shaqaysaa. Qofka 13aad gabar raani la dhaho oo YouTube videoyasha noocan soo gelisa ayay u soo dirtay message-kan. Waxay tiraahdaa raaniga qof qoyskeyga ka mid ah ayaa helay $60,000 qof aan la aqoonin ayuu qofkaasna ka helay sababtoo ah salaada tahajjud ay tukan jireen. Fadlan soo dhig message-kayga meeshan si dadka ay u arkaan oo iyaguna u tukadaan salaada tahajjud. Mahadsanid. Maybe waa laga yaabaa Ilaahay wuxuu u baryayeen waxay u tukanayeen inay lacag helaan. Qof aysan filanin ayaa meel lacag ooga keenay. Qofkii 14aad. Subxaanallah. Kadib markii aan sameeyay istighfaar muddo 16 maalmood waxaan iska bixiyay $15,000 oo ahayd deyn ardaynimo student loan. Dadka qurbaha jooga waxay bixiyaan markii waxbarashada loan deyna dawladda siisaa. Deynta marka 15,000 waan iska bixiyay deyntaas. Sanado badan waa bixin waayay deyntan. Haddana kadib markii aan sameeyay istighfaar muddo 53 bari ninkay wuxuu iska bixiyay 21,000 oo deyntii student loan-ka ahayd oo ardaynimada oo dawladda siinaysa. Dawladdu u celiyay 21,000. Maasha Allah. Ku dhawaad 2 bilood gudahood waxaan bixinay $36,000. Alxamdulillah. Maanta waxaan nahay dad aan deyn lagu lahayn. Sidoo kale Allah wuxuuna siiyay irsaaqad aad u badan. Alxamdulillah. Fadlan samee istighfaarta. Isku taxalluuji inaad tukato 5 salaadood maalintii. Kalsoonina ku qab qorshaha Allah. Iyana kaa dhumin rajada aad ku qabto Allah naxariistiisa. Si ducadaada lagaaga jawaabo waxay qaadan kartaa maalin, waxay qaadan kartaa weeks, waxay qaadan kartaa bilooyin, xitaa sanaday qaadan kartaa. Laakiin waa inaad yeelataa tawakkul iyo sabar. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kuu furi doonaa albaabo badan. Sababta aan go'aansaday inaan xitaa sheego exactly lacagii aan iska bixinay intay ahayd waad aragtaan inay lacag badan ahayd. Laakiin Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga dhigay mid aad u fudud oo si sahlan aan u bixino. Anagoo awal awoodi weynay before. Alxamdulillah. Allahu akbar. Qofka ugu dambeeyay qofka 15aad waxaan la xanuunsaday gastritis iyo walwal iyo walbahaar. Anaga Soomaaliyeena waa qabnaa bahashaas gastritis.
waa nagu badan tahay. Anyway, waxaan sameeyo yiri qofkan istighfar 1000 jeer maalintii. Waxaa sii dheereed inaan ku duceysto in Allah subxaanahu wa tacaala caafimaad tamaam isiiyo. Alxamdulillah, caloosheedii way soo reysanaysaa oo gaaskii wuu iga yaraaday. Sidoo kale walwalkaygii oo dhan wuu iga yaraaday. Waan sii wadi doonaa dikriga sababtoo ah faa'iidooyin badan ayaa ku jira. Qalbigaygii wuu degan yahay, fakarkaygii wuu fiicnaaday, shaqadeediina way fududaatay. Subxaanallah. Marka 15kaas qof sheekooyinkooda maasha Allah, marka casharada aan ka qaadan karna kan waxa waaye inaan anaga hadaa dhibaatana haysato, haddaan wax u baahanahay, hadaa caafimaad darana haysato, haddaan rabno inaan guursano, haddaan rabno inaan ninkeena aan heshiino ama xaaskeena aan heshiino oo nabad iyo deganaan, haddaan rabno awlaad inay noo fiicnaato, haddaan rabno awlaad dhalno, wax walbaba Allah subxaanahu wa tacaala ayaan ka heli karnaa. Waa inaan la nimaanaa istighfar, waa inaan dambiga iska yareynaa, waa inaan xanta iska yareynaa, waa inaan suuratul baqara aqrinaa. Haddaan muraad leedahay tahajjud inaad tukataa habeen walbaba. Tahajjudka Ilaahay ka bari waa invitation, waa casumaad Ilaahay ku casumayo. It's not easy inaad kacdo, laakiinse haddii xataa 10 daqiiqo 15 daqiiqo kor aad kacdo waxa waaye waad tukan kartaa. Another thing, sheekha dhageysaday maalin laxas oo dhahay haddii xataa caajis ku noqoto inaad sariirta ka soo kicin oo aad sariirta inaad jiifto, caajis aad tahay oo laakiin indhaha aad kala furtay, xataa gacmaha kor u taag adigoo sariirtaada jiiftid. Ilaahay bari ka bilaab meeshaas. Ilaahayow ii fududay inaan kaco, Ilaahayow ii fududay muraadkayga, Ilaahayow ciyaalka ii hagaaji, wax walbaba. Just haddii ay dhib kugu tahay tahajjudka, ka bilaab markaa indhaha kala furto sariirta adoo mar joogtid inaad ducada bilaabato oo Ilaahay weydiisto waxaa rabtid. Marka insha Allah, once again iga raali ahaada haddaan intaan soo gaarto inaad daawataano, iga raali ahaada inaan idinka soo daahiye. waa isku taxaluujinaa inta tabartayda ah inaan soo geliyo more. insha Allah khayran isku ognahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.